waayahay kulanti wanaagsan saaxiibayaal soo dhawaada waxaan rabaa in idin la wadaago xogta ku aadan madasha maanshiil oo soo saartay warqad markaasi si weyn looga cambaareynayo damaashaadkii iyo munaasabadii xalay ka dhacday magaalada Koonfur Galbeed Soomaaliya gaar ahaan magaalada Baydhabo iyo waliba sidoo kale cambaareen culus oo loo jeediyo dawladda federaalka ee Soomaaliya haddaba maxay tahay maxayse soo saareen xalay maanshiil maxayse ugu soo horjeedaan damaashaadka ka socda deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya sanad guurada madaxweyne Cabdicasiis Laftagareen halkan ayaan kugu faahfaahin doonaa marka hore soo dhawow haddii aad tahay qof nagu cusub nagu soo biir oo na soo follow garee ka mid noqo saaxiibadeena sida maalinlaha wararkeena halkan ugu la socda sidoo kale waxaan ka dalbanaynaa in like gareedo share gareedo meel dheer aad nala gaarsiiso muuqaalka si markaasi ee bulshada sida weyn warqadan ugu socoto iyo dawladda xubnaha ka aab markaasi ay u gaarto warqadan mahadsanidin soo dhawaada saaxiibayaal madasha maanshiil oo ah madal mucaarad ah kana soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa si weyn markaasi u cambaareeyay ama cambaareen culus u jeediyay damaashaadkii iyo waliba sidoo kale munaasabadii xalay ka qabsoontay magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyadoo markaasi dawladda federaalka Soomaaliya cambaareen culus ay u jeedisay in ayna tahay hubinti la'aan iyo waliba sidoo kale kalsoonidii ugu muhiimsaneed ay ku qabeen shacabka Soomaaliyeed ayna markaasi si weyn u dhaawacayso haddii dawladdu ay sidaan ugu taageerayso warqad culus oo ay soo saareen ayaana u qorneyd sida tan waxaa nasiib darro ah in madaxda dawladda federaalka Soomaaliya ay si cad markaasi u taageersan yihiin damaashaadkii xilhaynta sharci darrada ee markaasi deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya halka dawladda federaalka Soomaaliya lafteeda aysan cadeysan markaasi waa ay markaasi cadeysan in aysan sharci tahay waa markaasi hogaamiyaasha dawlad goboleedyada hadda markaasi ay jira tani waxayna markaasi wax u dhimaysaa mabaadi'da dastuurka iyo sareynta sharciga sida markaasi uu dhigayo qodobka afraad ee dastuurka xukuumaddu waxayna markaasi u hoggaansamaysaa dastuurka wuxuuna hagayaa hal abuurka iyo waliba sidoo kale go'aanada siyaasadda ee markaasi qaybaha kala duwan ee oo dhani ama ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaan u ogolaatay Laftagareen inuu markaasi xukunkaasi hayo sanadkii saddexaad go'aankii markaasi wuxuuna caqabad ku noqday horumarka iyo xasiloonida deegaanada waxaa nasiib darro ah in markaasi madaxda dawladdu ay ka qayb galayaan ama qayb ay ka yihiin damaashaadka xilhaynta sharci darrada ee ka socota magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meel gaarka ee dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyadoo markaasi shacabku ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ay ku jiraan xaalado adag amni darro barakac musuqmaasuq iyo waliba sidoo kale xurriyad la'aan sidoo kale waxaana ka qayb galaya xalfadda caawa dawladda federaalka Soomaaliya iyadoo markaasi meesha ay ka saareysa kalsoonidii ay shacabku ay ku qabeen hay'adaha qaranka waxaana caqabad ay ku tahay dadaalada dib u heshiisineed ama dib u dhiska dalka waxaana markaasi lama huraan ah in dawladda federaalka Soomaaliya ay qaado tallaabo degdeg ah oo looga hortagayo ama lagu saxayo xaaladda markaasi laguna xaqiijinayo in markaasi la ilaaliyo mabaadi'da dimuqraadiyadeed ee sareynta sharciga iyo waliba sidoo kale xuduudaha dastuuriga ee dawladda federaalka ee Soomaaliya taasi oona wax weyn ay ka bedeli doonto hubinti la'aanta waqtigan ee ka dhex jirta dawladda iyo waliba sidoo kale madasha maanshiil ayaana lagu yiri qoraalka ay soo saareen dhammaan madasha mucaaradka ee kana soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya muddooyinkii ugu dambeeyay hal jaaniyo cirib ay dhigeen lama haynin bal marka ay munaasabadu ay si weyn u soo ifbaxday ayay mar qura ay soo baxeen iyagoona markaasi sheegay in ay si sharci darro ay tahay munaasabada xalay sida weyn markaasi ugu dabaaldegay madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen tani ayaana ku soo aadaysa xilli markaasi ay u muuqato in sanad kale oo dheeri ah madaxweyne Cabdicasiis Xasan Laftagareen loogu daray taasi oo waqtigan la joogay ay wax weyn markaasi ay ka qaban doonaan sida ay sheegeen deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya madasha mucaaradka ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay laasanaa halka jaaniyo xirib ay dhigeen laakiin hadda ayay u muuqataa in mar kale ay soo muujinayaan aragtidooda ku aadan mucaaradka ee deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya si weyn markaas ugu soo horjeeda xukunka madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen adigu maxay kula tahay in waqtigan la joogay madasha mucaaradku ay soo saaraan qoraal sidan oo kale ah iyadoo markaasi si weyn loogu cambaareynaya dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo waliba sidoo kale maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya qaybta hoose faalada aragtidaada inoogu reeb si shargare muuqaalka meel dheer nala gaarsii waxaan sidoo kale ka dalban inaad nagu soo biirto na soo follow gareedo ka mid noqoto saaxiibadeena sida maalinlaha wararkeena halkan ugu la socda mahadsanidin